waxaa maanta magaalada Arabsi loo qabtay xaflad ballaaran oo lagu sii sagootiyay ardaydii dhamaysatay fasalada afraad oo guul ka soo hooyay sanadkan. Xafladaasi oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha waxbarashada gobolka Gabiley Cabsimed Sheekh Cumar Qaabil, gudoomiyaha waxbarashada degmada Arabsiyo Raxiime Xasan, gudoomiyaha degmada Arabsiyo Cabdulaaziz Faarax, dhinka jaamacadda Timcade ee Gabiley, ganacsatada magaalada iyo marti sharaf aad u badan. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa inta ka bacdi ilaah baa mahadleh maanta inoo suuro geliyay inaynu qabsano xafladan aadka u qiimaha badan ee ay ka soo qayb galeen bayac mushtarka waxaanay xildhibaano guddi waxbarasho gudoomiye iyo macallimiin iyo arday iyo dhalinyar kala badanba intaa ka bacdi waxaan aad ugu mahad celinaynaa cid kasta oo maanta ka soo qayb gashay xalfadan aadka u qiimaha badan ee ay ku qalin jebinayaan ardaydii form 4-ka ahayd ee sanadka ka baxay. haddii aanu nahay ardayda form 4-ka waxaanu aad ugu mahad celinaynaa macallimiintayada waxna soo baraysay ee kuwii ugu horreeyey ee qalinka noo qabta ilaa kuwa maanta noo dhigaya casharaanta ee noogu dambeeyey waxbarashada. waxaa kaloo aanu halkan aad inaan ugu mahad celino doonaynaa cid kasta oo nagala qayb qaadatay waxyaabihii aanu iskoolka kusoo kordhinay oo ahayd sida koobi aanu iskoolka aanu anagu abaabulnay oonu doonaynay inaan iskoolkeeda kor ugu qaadno iyo waxyaabo aad u badan oonu doonaynay inaan iskoolka kusoo kordhino. aad baan u faraxsanahay xafladda qaaliga ah aniga oo ku faraxsan guusha taariikhiga ah ay soo hooyeen ardayda form 4-ka secondary Arabsiyo taasoo ay rikoorka jabiyeen oo darajada A iyo B ay ku baaseen sumcad bay noo tahay dhammaan jumhuuriyadda Soomaaliland gobolka Gabiley iyo degmada Arabsiyo oo ku sultan inay hay tahay markasta waxbarashadeedu. Allahumma salli ala Muhammad. Anu waxaan taageersanahay oo guubaabinaya gabdhaha inay waxbarashada sii wataan oo gaaraan heer jaamacadeed. marka hore ilaahay oo mahadleh marka labaad waalidkii ku tabcay ardayda sumcadda soo heysay marka saddexaad macallimiinteedii nagu soo tabcday nagu soo dadaashay ayaan mahad celinaa isagoo iskuulku qabyo badan ka jirto haddana ardayda kor u soo qaaday la soo meel dhigtay ardaydii kale ee ahayd wax walba si fiican u helayay waa guul weeye ardayda soo heysay kolkaa waxaanu jecelahay inay halkaa horta ardaydu ka sii wadaan oo ardayda ka dambaysana ay ku daydaan. marka labaad waxaanu mahad u naqaynaa macallimiinteedii sida gaarka ah loo caawinaysay hadday ahaato kuwiina caawiyey kuwii baraafadada loogu dhigayey iyagoon wax lacaga ama wax kale aan naga qaadin. waxaan kaloon aada ugu sii mahad naqaynaa dadkii naga caawiyey ganacsatada oo badnaato sida cali carab oo kale yonis calinow aad buu noo gacan qabtay wax weyn buu marka koowaad ardayda maanta sanadka wuxuu soo saaray wasiirka waxbarashadu jaamacadaha maadaama ardaydii bateen malaa waa lasii yar nacnacayaaoo ardaydii reer Arabsiyo intaasay ogaadeen oo way kasii hor dadaaleen oo waxaa la yidhi sanadkan jaamacadaha dhiiyaanay qaadan dhiida mar labaad inay ku noqdaan baa loo ogolay dhiiyaanay qaadan marka la yidhaa Arabsiyo kuma jirta sanadka macnaheedu waxa weeyaan jaamacad way wada geli karayaan ardaydii sanadkan Arabsiyo ka soo qalin jebisay jaamacadaha dalka way wada geli karayaan waalidiinta mid baan ku dardaaraya maanta meel fiican bay ardaydaasi gashay waxaan leeyahay tacabkiina halkaa ka sii wada macallimiintana waxaan leeyahay dadaalkaa maanta aad muujiseen inaad kor uga sii socotaan oo weliba top 10-kiina kusoo darsataan mooye hoos ha u noqonina ardayda Arabsiyo jaamacaddu way idin furan tahay ardaygaa ugu sarreeyey kolley scholarship-kaan u ballan qaaday uu leeyahay oo ardaygaa ugu sarreeyey waan bilaash buu jaamacadda fakalka uu doono ku dhiganayaa maanta waa dafcaddii 13-aad guusha maanta ay ardaydaasi soo hooyeenna weligeed horan bay dhicin anigoo oo tafsiilinaya dugsigu waxaa form 4 sanadka u fadhiistay 62 arday 62 arday 11 arday baa A keenay 44 baa B keenay Allahumma salli ala Muhammad iyo sida positive-ka oo 6 arday ahayd hal arday baa lagu dhex jiray oo bedel loogu yimid form 4-ka markii ay ardaydu galaysay oo Gabiley ka yimid ardaygaasina wabillahi tawfiiq darajada dhiida la yiraahdo
iskuulku waxa uu leeyahay amba ka dhiman wax badan oo ay leeyihiin iskuul kasta oo Soomaaliland agabkii waxbarashada laga bilaabo 2000 amba 1998 oo macallin ka mid ah macallimiinta ayadaas uu ka bixiyo ardayda lagu furay iskuulka Mustafa Abdullaahi Cali waqtigaa laga soo bilaabay ilaa maanta dugsigu ma laha wax laboratory la yiraahdo library-na ma laha imtixaanka ardayda laga qaadayna 40% wuxuu ahaa experiment ama tijaabooyin dugsiga baahiyihiisa halkan lagu soo koobi karo to ugu muhiimsanina waxa weeyaan laboratory-ga iyo library-ga waxaynu iskugu nimidnay xafladda quruxda badan ee aynu ku sii sagootiyayno kuna xusayno kaalmihii wanaagsanaa ay keeneen ardayda foonfoorka Arabsiyood ka baxday iyo dhammaanba ardayda degmada Arabsiyood ka qalin jebisay sanadka dugsiyada dhexe laftooda waxa weeyaan waa Ilaahay loogu mahadnaqo aqoontuna way ku jirtay awalba sanad walbana way wanaagsanaayeen sanad ay arday ka dhacdayna ma jirin waxaanay yihiin ardayda ka baxda Arabsiyood arday ku suntan waxbarashada sidii ay nimcaynana waynu qabsan karaynaa dayactirka iskuulka oo kale waynu dayactiri karaynaa haddaynu isku tashano wixii nagaga xiran wasaaradda waxbarashada uu hogaaminayo mudane Cabdilaahi oo wasiir active oo firfircoona oo dardar cusub geliyo waxbarashada imtixaanaadkana awood badan saaray oo halkan u marinayo waxa weeyaan ardayda haddaan qishka laga ilaalin oo waxyaabaha qurunka laga ilaalin ee waxbarashada nusqaanta ku keenaya arday fiican ma soo baxayso wax kasta oo magaaladeena u baahan tahay inaynu ka qayb qaadano ubadkana loo ogaado ubadka haddaan waalidkiiyo macalinku isku xidhnayn imiga lama ogaan karayo carruurta hawada ka baxayaan waxa weeyaan iskuulka ummadda oo dhan baa leh waa iskuul dawladeed dadkuna ka dhaxeeya marka waxaan anagu ku dadaalaynaa inaanu kaalmahaasi maanta ay keeneen kuwa ka sarreeya gaadhaan sanadka dambana tabtanka Soomaaliland galaan foonfoorka ay soo bixi doonaan haddii ay qadaro dhammaantiin waan idin mahadnaqayaa Ilaahay baa mahad leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh carruurtu waagii miyiga la joogayay marka habeenkii la casheeyo caanaha la dhamo waxbay ciyaari jireen oo intay saasa u fadhiistaan bay lugaha fidin jireenoo waxaanoo biyaha buurtaa ku jira balansoodee biijo ilaaba bay odhan jireen dugsigaasana wax laguma dhigadii biijo ilaaba weeye maanta sidaa la ogaa halkaa waxba laguma dhigo taasi iyadu hawaday ka baxday haddaad sifaysan weydo baradaada bara kalena kuu dhadhami mayso hoyga ilaa halka uu ku dejiyey haddaad sifaysan weydo meel kaloo tagtaana sifo kuu yeelan mayso ugu dambeyntii ardayda Arabsiya Secondary School ayaa shahaado sharaf ku toosiyay maamulka waxbarashada heer gobol iyo heer degmo ganacsade Cali Arabsiye iyo Yunus Cali Nuur waa Maxamed Abane Arabsiya News